1.4 bilyan oo dalxiisayaal ah ayaa caalamka isaga kala gooshay sanadkii 2024 taas oo si weyn kor ugu kacday marka loo eego sanadkii ka horeeyay ee 2023 kororkan oo la aaminsan yahay inuu siyaadi karo sanadkan 2025 ayaa lagu tilmaamaa inay keentay heerka isdhexgalka bulshooyinka caalamka oo aad wanaagsan dalxiiska ayaa kaalin weyn ku leh dhaqaalaha isdhexgalka dhaqamada iyo nabadda caalamka waxaana meelaha kor u kaca fahamka bulshadeeda iyo dalxiisayaasha caalamiga ahba ay ka jiraan kamid ah deegaanada Puntland oo sanadkii labaad oo xiriir ay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta tiknoolajiyadda hidaha iyo dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Puntland qabanayso toddobaadka dalxiiska Puntland oo sanadkan loo doortay deegaan dalxiiseedka Mareero ee degmada Boosaaso oo ah goob dabiici ah oo kulaalaysa biyaha badda qiyaastii 25 kiiloomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Boosaaso halkani waa Mareero waa meesha loo asteeyay in 29 Oktoobar lagu qabto toddobaadka dalxiiska Puntland waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Boosaaso inay soo dhaweeyaan dalxiisayaasha uga imaanaya dalka dibadiisa iyo kuwa gudahaba hadday shalay Boosaaso ahayd magaalo ganacsi keliya maanta waxay qayb ka noqotay magaalooyinka dalxiiska ee Soomaaliyeed runtii ka wasaarad ahaan bandhigga dalxiiska Puntland Boosaaso waxaan ugu dooranay Boosaaso waa magaaladii ilbaxnimada waa magaaladii ganacsiga waana magaaladii dalxiiska waa magaalo muhiimad gaar u leh muhiimad deegaan dalxiiseed u leh Puntland gobolka bari iyo Soomaaliyaba maalmaha uu socdo bandhigga dalxiiska Puntland waxaa ku kulmi doona dad badan oo hiboolayaal ah dadka hiboolayaasha ah waxaan guddoonsiin doonaa waxay mutaysan doonaan in la abaal mariyo talentiga ay soo bandhigi doonaan haddii Alla idmo insha Allah nabadda iyo horumarka Boosaaso ayaa kordhay bilihii u dambeeyay rajada shacabka ayaana siyaaday kadib bilowgii hawlgalka ciribtirka argagixisada ee sifaynta buuraha calmiskaad oo ahaa go'aan masiiri ah oo ay dawladdu gaartay waana mar kale oo ay Boosaaso iyo gobolka bariba qabanayaan indhaha caalamku iyadoo 29 ilaa 31 Oktoobar ay Mareero martigelinayso boqolaal dalxiisayaal ah oo ka kala yimi gudaha iyo dibadda aad baan ugu faraxsanahay in degmada Boosaaso gaar ahaan deegaan dalxiiseedka Mareero ay sanadka martigelin doonto asbuuca dalxiiska Puntland run ahaantii ahmiyadda gaarka ay leedahay in degmada Boosaaso iyo deegaanka Mareeraba ay martigeliyaan ahmiyadda ay leedahay kow Boosaaso oo ah magaalo xeebeed labo Boosaaso oo ah waxa way isha koowaad ee dhaqaalaha Puntland Boosaaso oo ah magaalo weyn oo martigelisay bulsho badan oo kala duwan oo ka kala yimid Soomaali markii laga tago bulsho kale oo kala yimid dunida daafaheeda iyo dacaladeeda kala duwan ahmiyadaas gaarka ay leedahay marka aad baan ugu faraxsanahay dareenkeena riyaaqa iyo reereenta leh lama cabiri karo marka mar labaad sidoo kale waxaan dhalinyarada ku boorinayaa in asbuucaas waxa way si weyn looga qayb qaato shaqadan baaxadda leh ayaa muujinaysa kobaca dawladnimo ee Puntland oo si wada jir u wada difaac dalxiis adeeg bixin bulsho iyo horumar deegaan oo la taaban karo maamulka degmada Boosaaso ayaana dhankooda ku hawlan helista Boosaaso horumarsan oo la tartami karta magaalooyinka caalamka gaar ahaan dhinacyada nabadda dalxiiska bilicda kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeeg bixinta bulshada